بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابديال كسو دبادة قضبادة ورركينا وقودور كرون جانالكا دايني لتيفي وحانا كمد نقونيا قرح كدعي مقالة مقدشو يحكو سابسان جنرال لبك سدي بوتلان او شاعسي إناي قبطي حبنو شباب او حرير لله سوماليلان عبد الرحمن عينتي او ويرر كو قاضي فرماجي مدحدة دولة سوماليا khilaafka beledweyne ka taagan oo sii xoogeysanayo madaxweyne farmaajo oo shuruud ku xiray siideynta wasiir Cabdirashiid Janan ciidamada dawladda oo qaraxyo fashiliyay al-shabaab oo joojiyay dhismihii garoonka istaadiyo Muqdisho lagu waday maxbuus shabaab ahaa oo xalay ka baxsaday saldhig ku yaala Muqdisho iyo shaqaalaha gobolka Banaadir oo qarka u saaran in ay shaqo joojin ku dhawaaqaan daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door corona haatan ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo xog ku saabsan jeneraal la beegsaday qarax ka dhashay miino lagu xiray baabuur ayaa maanta ka dhacay kaalin shidaal oo ku dhow xabsiga dhexe ee xamar ee magaalada Muqdisho sida ay ogaatay Dayni Latifi gaariga qaraxay ayaa waxa watay jeneraal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la sheegay in dhaawac uu soo gaaray jeneraal Maxamed Cabdulle Dhoore ayaa booliiska u qaabilsanaa xiriirka arrimaha dibadda iyo booliiska caalamiga ah ee Interpol gaariga la qarxiyay ayaa ahaa nooca loo yaqaan Saarifta waxaana la sheegay in qaraxa uu ahaa mid jeneraal Dhoore loogu dhajiyay wararka qaar ayaa sheegaya in dhaawaca gaaray uu ahaa mid culus sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa uu sababay dab xoogan oo qabsaday kaalinta shidaalka ee qaraxu agagaarkeedu ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay kuwaas oo hakiyay isu socodka dadka iyo gaadiidka maadaama halka qaraxa uu ka dhacay ay in badan isticmaalaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan walow markii dambe dib u fasaxaan maamul goboleedka Puntland ayaa shaaciyay in ay qabteen xubno shabaab ah oo la xiriirinayo Somaliland taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Sareegaas Yaasiin Cumar Dheere oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada maamulkaasi ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab isla markaana xiriir la lahaa maamulka Somaliland sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa xusay in xubnaha la qabtay ay qirteen in ay yihiin al-shabaab isla markaana ay isbahaysi la yihiin Somaliland sidoo kale wuxuu tilmaamay in xubnahaasi lagu qabtay agab iyo dhaqaale laga keenay Somaliland una wadeen buuraha galgala oo ay ku xoog yihiin al-shabaab dhinaca kale ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka Somaliland oo ku aadan raggaasi ay qabteen ciidamada Puntland dhawaan ayay ahayd markii Puntland ay shaacisay in ciidanka Somaliland iyo al-shabaab oo wada socda ay duulaan ku yihiin gobolka Sanaag labada maamul oo daris ah ayaa waxa ay isku hayaan gacan ku haynta gobolka Sool iyo Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya Cabdiraxmaan Ceente oo weerar ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dawladda Soomaaliya wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Ceente oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga RTN ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxda filla Soomaaliya isagoona ka hadlay arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya ugu horreyn wuxuu soo hadal qaaday khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada gaar ahaan doorashooyinka ka dhacay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ceente ayaa sheegay in ay isku dhagan yihiin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada isla markaana ay arintani dalka u horseedayso dib u dhac ayuu yiri sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxda filla Soomaaliya ay aaminsan yihiin in siyaasadda lagu kala adkaado lagu hagi karo dalka isla markaana ay dadka ka soo horjeeda u arkaan cadowga dawladda madaxda dawladda federaalka waxay aaminsan yihiin siyaasad lagu kala adkaado in ay dalka ku hagi karaan waxayna aaminsan yihiin dadka siyaasiyiinta ah ee ka soo horjeeda in ay ka adkaan karaan waxayna kale u arkaan cadowga dawladda ayuu yiri Ceente dhanka kale wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in uu faraha ka sii baxayo amniga Soomaaliya isla markaana ay dawladda ka gaabisay arrimaha nabadgelyada gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho
waxa kale oo uu sheegay in al-shabaab ay bilaabeen lacago canshuuro ah oo la mid ah kuwa dowladda ay ka qaadato ganacsatada Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn wuxuu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dhabeeyo hadalkiisa ahaa in uu noqonayo nabadoon Soomaaliyeed oo isu keenayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. madaxweynaha isaga ayaa dalka u weyn oo oday noo wada ah si kasta oo looga aragti duwan yahay isaga ixtiraamka iyo qabti Soomaalinimada ku fadhiya in uu dadka Soomaaliyeed madaxda u yahay kuwa taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda inuu isugu yeero sida uu Garowe ka yiri ee ahaa nabadoon Soomaaliyeed ayaa rabaa inaan noqdo. waxa uga fadhinaa madaxweynaha nabadoonnimadii uu ugu yaboohay caleemasaarkii madaxweyne Dani. nabadoonnimada waa in dadka ka aragti duwan ina qol la soo fariisato oo aad la hadasho, laakiin haddaad aaminsan tahay dowladnimada ayaa sharci ku siinaysa inaad dadka ka soo adkaatid. Soomaali haddii laga kala adkaan karo meeshan lama soo gaareen, marka la soo kala adkaan waayo waa la isku baaba'aa meeshaasna in loo celiyo waxay ayaan dalo ku tahay dalka, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Cabdiraxmaan Cinte. khilaafka beledweyne ka taagan oo sii xoogeystay, faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya kulamo gaar ah oo xalay ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. kulamada oo ahaa kuwa xasaasi ah ayaa waxaa wada qaatay saraakiil ka socday dowladda iyo odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi. intooda badan kulamada ayaa waxaa diiradda lagu saaray khilaafka ka taagan beledweyne, kaas oo ka dhashay amar ka soo baxay dowladda oo ku aadanaa in ciidamada jooga magaaladaasi loo daabulo dhanka gobolka Galgaduud. waxgaradka magaalada ayaa ka biyo diiday arrintaasi, waxaana dowladda dhexe ay ku eedeeyeen inay faragelin ku hayso arrimaha gobolka Hiiraan. wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo kulamadii xalay ayaa sheegaya in ay ku soo dhamaadeen fashil iyadoona aan la gaarin wax natiijo ah. sidoo kale ilo lagu kalsoon yahay ayaa Daily TV u xaqiijiyay in lagu kala tagay shirkaasi. arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan beledweyne uu ku sugan yahay madaxweynihii Hirshabeelle oo dhankiisa kulamo gooni ah la qaatay saraakiisha qeybaha 27aad iyo 21aad ee ciidanka militariga Soomaaliyeed. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa shuruud ku xiray siideynta wasiir Cabdirashiid Janan oo ahaa wasiirkii amniga maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe ee Jubbaland. guddi ka socday maamulka Jubbaland iyo waxgarad gado oo la kulmay madaxda hay'adaha amniga iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in la hordhigay shuruudo lagu sii deynayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan. guddigan ayaa sheegay in shuruudahaasi ay ka yimaadeen dhanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo loogana baahan yahay Jubbaland in ay fuliso si loo sii daayo Janan. Axmed Maxamuud Cumar oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga madax bannaan xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay in ay la kulmeen mas'uuliyiin dowladda, laakiin laga dalbaday shuruudo u muuqday kuwa siyaasadeysan oo loo baahan yahay in la fuliyo si loo sii daayo wasiir Janan. kulamo aan la yeelanay madaxda hay'adda nabad sugidda Soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka waxayna hordhigeen qodobo uu madaxweynuhu doonayo inaan fulino ka hor sii deynta wasiirka, ayuu yiri Axmed Cumar. waxa uu sidoo kale tilmaamay in qodobada la hordhigay dhammaantood ay yihiin kuwa ku aadan kala qaybinta bulshada deegaanada maamulka Jubbaland. qodobada qaarkood waxa ay ahaayeen qabyaalad cad, kala qaybin iyo iska horkeen dadka reer Jubbaland, ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Jubbaland. Axmed ma uusan shaacin waxa ay yihiin shuruudaha, hase yeeshee waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu qaadi doono wixii dhibaato ah oo ka dhasha xariga wasiirka maadaama dadka deegaanadaasi lagu wado kala qaybin sida uu hadalka u dhigay. ciidamada dowladda oo qaraxyo fashiliyay. ciidamada militariga Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay fashiliyay qaraxyo lagu aasay qeybo ka mid ah degmada Buulabirto ee gobolka Hiiraan. qaraxyada oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa ay saraakiishu u soo bandhigeen warbaahinta kadib howlgallo ay ka sameeyeen degmadaasi. saraakiil ka tirsan kuwa dowladda ayaa sheegay in qaraxyadaasi lagu aasay suuq lagu iibiyo qaadka
kuna guuleysteen in ay soo saaraan miinooyinkaasi. sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in shacabku ay la soo wadaageen xogta qaraxyadaasi isla markaana ay uga mahadcelinayaan wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidanka amniga. muddooyinkii dambe ayaa waxaa falal lidi ku ah nabadgelyada ay ka dhacayeen degmada Buuloburte oo inta badan weeraro culus ay ku qaadaan dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo joojisay dhismihii garoonka Stadium Muqdisho lagu waday. qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda qaadatay qandaraaska lagu dhisayo tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho ayaa xaqiijiyay in amar ka soo baxay al-shabaab lagu joojiyay guud ahaan dhismihii garoonkaasi. al-shabaab ayaa ku amray shirkadda ay dowladda federaalka siisay qandaraaska lagu dayactirayo garoonka inay joojiso dhismaha ay ka wado halkaasi. shaqaalaha ayaa sheegay in mid loola soo xiriiray iyadoona loogu goodiyay in la dilayo haddii ay soo xaadiraan shaqada dhismaha garoonkaasi, waxaana sidoo kale amar la siiyay madaxda shirkadaasi. tallaabadan ayaa sababtay in gebi ahaanba uu joogsado dhismihii dib u dayactirka ee ka socday garoonka Stadium Muqdisho. sidoo kale xubnaha ka tirsan shaqaalaha shirkadda ayaa xaqiijiyay inuu socdo wadahadal u dhaxeeya al-shabaab iyo mas'uuliyiinta shirkadda oo doonaya inay wada xaajood la galaan al-shabaab si loogu fasaxo dhismaha ay qandaraaskaasi ku qaateen ee ka socday garoonka ciyaaraha. garoonka ayaa waxaa hadda degan ciidamo booliis ah kuwaas oo u babac dhigi waayay hanjabaadda al-shabaab kaga imaanaysa shirkadda iyo shaqaalaheeda ku howlanaa dhismaha garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada AMISOM sanadkii hore kala wareegtay garoonka kuwaas oo deganaa in ka badan 7 sano, waxayna dejisay ciidamo booliis ah iyada oo ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan dib u dayactir loogu sameyn doono garoonkaasi. al-shabaab ayaa ku dhiirada in ay hakiyaan dhismayaasha ay gacanta ku hayaan dowladda iyo shirkadaha xiriirka la leh, waxayna ku xujeeyaan in ay bixiyaan lacag si loogu fasaxo dhismahooda. shaqaalaha iyo shirkadda dhismooyinka oo naftooda u baqaya iyo ayaga oo og in dowladda aysan ka badbaadin karin al-shabaab ayaa inta badan qaata amarka ka soo baxa xarakada al-shabaab. maxbuus shabaab ahaa oo xalay ka baxsaday saldhig ku yaala Muqdisho. warar aan ka heleyno degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in xalay saldhigga degmadaasi uu ka baxsaday nin ka mid ahaa maxaabiista ku xirnaa saldhiggaasi. ninkan maxbuuska ah ayaa baxsaday xilli askarta saldhigga ku sugneed ay fadhiyeen iridda hore ee saldhigga, isla markaana waxaa eryaday mid ka mid ah askartii bannaanka joogtay oo rasaas kor u riday, ugu dambeyntiina soo qaban waayay. askari kale oo aan ahayn kii xabadda dusha sare u riday ayaa la sheegay inuu qabtay ninka maxbuuska ah, balse muddo 5 daqiiqo ah oo ay dagaalamayeen askariga iyo ninka maxbuuska ahaa isla markaana shakhsiga maxbuuska uu la qabsaday qoriga, ugu dambeynna uu mar kale baxsaday maxbuuskii. maxbuuska ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab isla markaana ay u suura gashay gebi ahaan gacanta ciidanka iyo saldhiggaba inuu ka baxsado. taliyaha saldhigga degmada Waaberi oo lagu magacaabo Maxamed Mooshin ayaa la sheegay inuu 20 daqiiqo kadib yimid saldhiggaasi isla markaana uu canaan ku bilaabay askartii shaqada ku qorneed iyo askarigii hayay furaha qolka maxbuuska ku xirnaa. ugu dambeyntiina shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa qarka u saaran inay shaqo joojin sameeyaan. waxaa aad u sii adkaanaya nolosha shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Banaadir oo aan wax lacag ah qaadan muddo dhan 3 bil, iyadoona ay wajahayaan duruufo aad u adag. shaqaalahan oo siyaabo kala duwan ula soo xiriiray Daily TV ayaa noo sheegay in ay wajahayaan nolol aad u adag ayna u baahan yihiin in cabashadooda la gudbiyo. dhibaatada kale ee haysata shaqaalahan dowladda hoose waxa ay tahay in aysan si shaacsan warbaahinta uga hadli karin oo aysan u gudbin karin tabashadooda, waxayna ku weynayaan shaqada ay hayaan. mushaar laga qaato gobolka Banaadir waxa ugu dambeysay 20kii bishii Juun ee sanadkan, waxaana tan iyo markaas aysan helin xuquuqda iyo mushaarka
ay leeyihiin qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ayaa laga saaray guryihii ay deganaayeen halka qaarka kalena ay qarka u saaran yihiin sidaas oo kale isbedel maamul oo gobolka ka dhacay iyo musiibadii ka horeysay ayaa la aaminsan yahay inay sabab u tahay dib u dhaca mushaarka oo markii horeba kontankii maalmoodba mar la bixin jiray. daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen janalkeena Daynile TV. inta aan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idin xasuusinayaa inaad janalka subscribe saartaan sidoo kalena aad gambaleelka doorataan si ay idinkugu soo dhacaan wararkeena. mahadsanidin.